waxaan muuqaalkan doonayaa inaan kaga hadlo sidee lagu ogaaday Deeqa Cabdinuur inuu dilay dilaagii la goobayay ee magaciisa la yiraahdo Haashim. waa maxay cadayntii la helay oo dowladda Kenya ay ku ogaatay inuu ninka dilay gabadhaas? waxaa la yiri gabdho hore ayuu dilay, haddana asaga dilay. ma sidaaba lagu goobayay mise wax kale oo cadayn oo la helay oo aynu doonayno bal inaynu fahanno ayaa meesha ku jiray ayaan muuqaalkan uga hadli doonaa. 31 bishii aynu soo dhaafnay ayaa qabuuraha Langata waxaa laga helay lafo iyo madax iyo dhar dumar kadib markii ay booliiska la hadleen dad shacab ah oo waxa soo arkay. dharkii iyo lafii markii la baaray ayaa waxa dharkii laga dhaxelay receipt markaasi information tira badan uu ku qornaa, waana furihii ugu weynaa ee la helay ee la ogaaday in uu ninkan Haashim ah uu dilay gabadhaani. waxaan markaa sharaxi doonaa bal steebyadii ay dowladdu martay iyo xogihii meesha laga helay iyo halkay wax marayaan. tusaale receipt kan oo kale ayuu ahaa, kan ma ahan laakiin mid u eg ayuu ahaa. waxa receipt-ka ku qoran markii aad fiiriso taariikhda qofka uu wax iibsaday, waxaa ku qoran magaciisa, waxaa ku qoran telefonkiisa, waxaa ku qoran halka uu wax ka iibsaday, arrimaha iyo dhan iyo waliba waxa uu iibsaday. receipt-kii laga helay maydka dharka gabadha dumarka ee Langata ayaa waxaa laga helay location-ka ay gabadhu wax ka iibsatay iyo magaceeda iyo telefonkeeda. kadibna waxaa iskeenay gabadh ila raadinayay iyo information-ka baa iskeenay. waxay booliisku tageen supermarket-kii, waxaa la weydiiyay bal CCTV inay leeyihiin, kabacdina bal la fiiriyo date-ka iyo taariikhda iyo saacadaasi gabadhaani waxa ay ka iibsatay bal inay waxun muuqaal ka hayaan. wixii intaa ka dambeeyay waxaa la arkay muuqaalka gabadha, waana markaasi markii la shaaciyay sawirkan aad arkaysaan, waana meeshii markaa laga ogaaday in gabadhu ay markaa tahay gabadhaasi, maydka meesha yaalana uu yahay maydka gabadhaan. inta wixii ka dambeeyay waxay sirdoonka dalka Kenya ay baareen numberka gabadha ee receipt-ka ku qornaa, dadkii soo wacay iyo dadkii ay la xiriirtay. waxaa la ogaaday numberadii ay la hadashay numberkii ugu dambeeyay inuu ahaa numberkii Haashim. halka ayay ka timaaday marka inay booliisku shaaciyaan inuu Haashim ahaa suspect ugu weyn ee gabadha marka inuu dilay uu yahay. kadibna waxay booliisku u fududaatay inay tagaan gurigii uu deganaa oo markaa Lavington ku yaalay, oo aan aad uga fogeyn halka ay gabadhu wax ka iibsatay. waxaan oran karayaaba guriga hoostiisa ayuu ku yaalay supermarket-ka ay gabadhu wax ka iibsanaysay. guriga naftirkiisa wuxuu ahaa apartment-yo leh CCTV. isla saacadaasi iyo wixii ka dambeeyay markay gabadhu ka soo baxday supermarket-ka ayaa isagana la fiiriyay CCTV-ga. waana markaas sidoo kale markii la ogaaday ama la helay sawirka uu bacaha madow gacanta ku wato, waxaasoo la aaminsan yahay markay ahaayeen dhiigga iyo lafaha gabadha walaasha ah ee markaa halka lagu dilay. markii ay xisaabiyeen booliiska waqtigii gabadhu ay supermarket wax ka iibsatay iyo markii ninkan uu bacda weyn ee lafuhu ku jiraan uu watay, waqti yar ayaa u dhaxeeyay. waana markii la fahamay inaysan gabadhu wax badanba jooginin guriga Haashim. waxay sirdoonku aaminsan yihiin in gabadha iyo ninku ay waxun xiriir ka dhaxeeyeen. waxayna yiraahdeen muddo ilaa iyo asbuuca ayay gabadhaan ninkan la noolayd oo ay la deganeed apartment-ga uu Lavington marka uu ka degan yahay, sida iyagu ay xogta markaa ku sheegeen. waxaa kaloo caqliyan aan suurtagal ahayn, qof aan xiriir kala dhaxaynin ama ganacsi aan kala dhaxaynin ma fududa, suurtagalna ma aha in markaasi gurigiisa loogu tago. markaysa marka xogta ugu dambaysa oo ay booliisku hadda hayaan waxay tahay in gabadha iyo ninkan wuxun xiriir markaa uu ka dhaxeeyay gurigiisana ay ugu tagtay. markii la fiiriyo lafaha la soo bandhigay, waxyaalaha ugu badan oo isweydiinaya waxaa weeye halkee hilibkii uu aaday qofka la dilay. waxay sheegayaan booliisku inay suurtagal tahay inay markaa ninkan uu isticmaalay chemical markaa lagu shubo maydka ama dadka jirkooda, kabacdina ka miiraya ama ka guraya hilibka oo lafiyo qalalan markaasi ay soo baxayaan, kabacdina lagu shubi karayo dhiigii iyo hilibkii maybe musqulaha iyo meelaha lamidka ah. waxyaalaha la ogaaday markii telefonka Haashim la fiiriyana waxay ahayd nin kale oo madow ah oo shalay lagu qabtay magaalada Eldoret oo taksiila ahaa ayaa isaguna gacanta lagu dhigay maalinkii shalay ahayd. ninkan wuxuu ahaa ninkii bixinayay baa la yiri dhaqaalaha ku baxay gurigii uu markaa ninkan uu deganaa gabadhan lagu dilay. la sheegana inay gabadha iyo ninku ay wada deganaayeen. waa taksiile, waxaana la helay taarikada gaarigiisa. ninkan madowga ah oo aan weli wax xoga laga helinin waxa uu mataqaanaa oo hawshaani uu ku lahaa ayaa isaguna wuxuu ka mid yahay dadka prime suspect-ga ah inuu kooxdaani marka uu ka tirsan yahay. waxyaalaha la yaab kale oo ilaa hadda la ogaaday waxaa ka mid ah ilaa iyo 5-6 baangadood oo kala duwan ayaa gacanta lagu dhigay. meesha gabadha maydkeeda laga soo qaaday Langata waxaa laga helay baangad dhiig leh
guriga waxaa laga helay baangad dhig leh guriga baagad laga qaaday xaafad kale la geeyay waxaa laga helay baangad dhig leh gaariga ninkan madowga uu wateen waxaa laga helay baangad dhig leh waxay arrintaas marka muujinaysaa inay jirtay koox xoog leh oo arrimahan ka shaqaysanaysay ilaa haddase lama ogaanin motifkii wuxuu ahaa wax dadka loo laynayay maxay tahay ma hilibkaa la cunayay ma hilibkaa la iibinayay ma xubnaha biniaadamkaa loo baahan yahay ma ganacsi kalau ahaa ma dhaqaale laga dulgoobayay ilaa hadda lama hayo xogta ah waay dadka loo dilaya laakiin meel xasaasi ayuu kiiskan u maraya maalmihii lasoo dhaafin si xoog leh ayaan isha uga hayay bal qaybihii dambe iyo wixii dambe ka soo baxa waan idiin soo sheegi doonaa laakiin arrinta la yaab kale waa arrinta xasuusnaataan waxay tahay in rasiidyada yaryarka ee aan jeebka ku wadano markaan wax iibsana aan iska tuurayno inay noqon karayaan caddayn weyn oo kiis intaan leeg markaa banaanka usoo bixin karta aad baan idiin salaamayaa meel walboo joogtaan iyo si walbood ii maqlaysaan